waxaad hadda xilka wareejinaysaa iyadoo dagaal ka dhana al-shabaab uu socdo isbedelkani saameyn ma ku yeelan karaa howlaha hadda socda mase isleedaha waa ay ahayd xilli ku habboon in isbedel saas u dhaco wallahi horta taas horta waxde aniga in la weydiiyay ay tahay maahan taas horta waxa habboonaa lahayd ama fiicnaa lahayd mas-uuliyiinta iyo madaxda qaranka oo isbedelka sameeyay su'aashii la weydiin lahay waaye ani su'aashii la weydiin lahay maahan xogo ay VOA da hesho waxay sheegayaan in adiga iyo wasiirka gaashaandhigga muddo wada shaqayn aadan lahayn taana ay ka mid ahayd waxyaabaha keenay in isbedelkan la sameeyo oo ay adkaatay shaqadii aad wada qaban lahaydeen maxaad ku tilmaami lahayd wada shaqayntii kaala dhaxaysay wasiirka gaashaandhigga kaas waxa waaye wasaaradda gaashaandhigga waa wasaaradda gaashaandhigga shaqo iyo waajibaad ay leedahay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqo iyo waajibaad ayuu leeyahay korjoogteyn iyo waxyaabaha lamid ah ka ah ayay taliska iyo wasaaradda ka dhaxeeya marka taas waxa hadda aan leeyahay aan uga jawaabaya ma ahan waxaan isleeyahay waa iska hadal aan sal yaraad lahayn adiga waxa ku magacaabay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu dhacana madaxweynaha cusub waa aad la shaqeynaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kalsooni intee leeg ayuu madaxweyne xasan ku qabay howshii aad haysay waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol kalsooni oo ku qabay muhiim ma ahan mar anaga ciidanka haddaan nahay cidana magacawday iyo cidda meesha joogta muhiim ma ahan waxaa muhiima waajibaadkeena iyo shaqada noo taala in aan qabanno fahmina karno taas marka waxaan isleeyahay wax u baahan su'aal ma ahan waa madaxweynaha qaranka waaye madaxweynaha ay magacaabana waqtigu ay magacaabayay qofka ma magacaabi kariya taytalka iyo mas'uuliyadda ay ayuu ugu magacaabay madaxweynaha qaranka ayuu ahaa ciidanka Soomaaliya waxaa la sheegaa in caqabadaha ka dhex jira ay ka mid yihiin in ay jiraan saraakiil iyo ciidamo ladda ka tirsan laakiin horjoogayaal beeleedna ah oo iyagu hogaamiyayaal iskood u hubeysan ah ma raba hadda inaan carabka ku dhufto laakiin labada shabeelle u badan yihiin sidoo kalena waxaa jira hub iyo ciidan beeleedyo laakiin dawladda iyo ciidanka qaranka u adeega laakiin aan ciidanka hoos imaanin aad taliyaha u tahay bal xaaladahaasi ka waran ka taliya ahaan caqabado intee la egaad kala kulmaysay muddadii aad xilka marka aan runta kuu sheego walaashay waxa waaye saraakiil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hay'adaha amniga ka tirsan ee aan hoos tegin chain of command-ka iyo hoggaanka iyo meesha ay ka tirsan yihiin aan hoos tegin oo gaar u taagan oo hubkooda gaar ka wato gaadiidkooda gaar ka wato horta aniga ma ogi taas waxa fiicnaa laheeday in yacni aad adinka ka muxuu ahay aad ku samaysaan bal horta hubin inaad ku samaysaan arrintaas waa arrin sax ma ahan way jiraan sida la socotaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday dadka Soomaaliyeed maadaama muddo dheer ay urur argagixiso caalami ay la dagaalamayeen dhibaato badan ay dadka ku hayeen dadka Soomaaliyeed in ay qarankooda garab istaagaan ciidamadooda garab istaagaan hubka qaataan cadowgana ay la dagaalamaan dadka hubeysan oo qabaa'ilka ah oo dawladooda garab istaagay oo sida iskooda isu abaabulay oo ciidamadooda garab istaago way jiraan laakiin saraakiil hub ayagu ay leeyihiin iyo gaadiid ayagu ay leeyihiin meel la taagano arrintaas arrin sax ma ahan ciidamada waxaa lagu soo tababaray Soomaaliya dalal kala duwan waxayna la yimaadeen noocyo kala duwan oo tababaro ah culays intee leeg ayaad madaxdii ciidamada haddii aad tihiin arrintaasi aad kala kulanteen runtii arrintaas waa arrin caqabadeeda iyo culayskeeda leh sax waaye way jirtaa ciidanka doctorinkiisa iyo tababarkiisa iyo wixiisa inay mid yihiin ayaa fiican laakiin daruufaha jira iyo xaaladda maanta waddankeenu ku jiriyo ayaa kaliftay oo sabab u aheeday arrintaas inay sidaa u dhacdo laakiin waxaan dhihi karaa haddana maantay meelo waxaan soo gaarnay aan tababaradooda habkii aan ku miday lahaynay iyo sidii muxuu ahay sheegay ciidamadaas markii ay tababarada dibadda ay soo dhameystaan wixii ka dambeeya inay muxuu ahay tababarkooda la mideeyo qorshayaasheeda ayaa meel fiican soo gaaray waxaanaba rajaynahoon isleeyahay sida hadda qorshuhu ahaa ama meelaha hadda wax noo maraayeen taliskuna uu dabcan uu sii raaci doono meelo hadda wixii ka dambeeya ciidamada caadiga ah ama adableyda aan banaanka loo qaadi doonin ayaan soo gaarnay oo dalka gudihiisa lagu tababari doono saraakiisha iyo saraakiil xigeynada iyo dadka xirfadlayaasha normaliba sida ay aheeday way sii socod doonaan oo dalalka dibadda ah iyo dalalka aan saaxiibada nahay dabcan tababarkooda waa lagu soo sii doonaa laakiin waxaan isleeyahay waqtiyada soo socda waa ka maarmi doonaa kuwa hore loo soo tababarana tababaradooda gudaha dalka ayaa lagu miday doonaa kuwa cusubna waxaan isleeyahay dalka gudihiisa ayaa lagu tababari doonaa haddii ilaah yidhaahdo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaano kala duwan waxay muujinayeen in ciidamada tusaale ahaan dagaalka ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Masagawaay ciidanku
waxaa ka muuqatay habacsanaan badan meelo badan oo horey dagaalo loogu galana waa ay ka jirto inkastoo amisomta laftirkeedana culeysyadaas ay wajahaysa ma isleedahay difaacyada ay hadda admis ku jirto ciidanka Soomaaliya waa xajin karaan horta waxaan rabaa inaan laba kugu kala qaado horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddadii aniga hadda aan kulay taliyaha ka ahaa 2000 iyo kasoo bilow 19 ilaa maalinta maanta ah hadda dib horta historiga u baarto dagaal meelo oo ka dhacay oo ciidamana ay ku dhinteen ciidamana ay ku dhaawacmeen way jirtaa mar haddii dagaal la galana sideedaba dagaalan gala dhimana maayo dhaawacmina maayo horta meesha ay ku qoran tahay taas waxay u baahan tahay horta in baaris kale lagu sameeyo horta la soo ogaado oo xirfadeeda iyo aqliga loo sheegayo horta in dib loo raadiyo u baahan tahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka soo bilow 2019 ilaa maanta oo aan marayno 2023 goob ay cadawga ku dagaalameen gacanta cadawga gashay ee lagala wareegay ee ay sida uga huleeleen ciidamada qaranku horta ma jirto haddaad gadaal u raadiso dagaalo way dhacaan cadawga jab badan ayaan gaarsiinay meelo badanna muxuu ahay ii sheegay ciidamada ayagana muxuu ahay ii sheegay guulo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ayay ka gaareen hadday noqon lahayd deegaanada la xureynayay hadday noqon lahayd muxuu difaacyada cadawga ay ku soo weerareen guulo aan kala go' lahayn ayay ka gaareen meelaha qaarkood yes way jireen muxuu ahay ii sheegay cadawgu inay ciidamada ay wax ku gaarsiiyeen ay wax ku yeeleen laakiin haddana waxaad dareemi kartaa ciidanku kalsoonida iyo dhiiranaanta ay qabaan waqtigaas ka soo bilow markii ciidamada Soomaaliyeed ay bilaabeen ayagu inay si iskooda ay u dagaal tagaan oo ay dalkooda xureeyaan ilaa maalinta maanta ah goob dagaal waa ka dhacay dad waa ku dhinteen laakiin ma dhicin goob cadawga oo yalla wareegay oo si nabada anaga dawladda meesha dib uga qabsanay ay yiraheen haba yaraatee ma jirto marka taas horta taas aan ka leeyahay arinta ciidanka habacsan mar walba media waxaan ka arkaa oo rabo fursad aan uga faa'iideysto ciidanka waa la gaaday ciidanka waa la macnaheeda weerar marka uu dhaco ciidanka in la gaado ay safoo jignayn ma laakiin weerar uu dhici kariya macnaheedu ma ahan muhiimadu ma ahan ma la weeraray masalamo weerar uu dhacaya laakiin natiijada ayaa muhiim ciidamadii ugu dambeeyay tababarka soo dhamaysta waxaa ka mid ah ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea maxay ciidamadaasi kaga duwan yihiin ciidamadii hore oo aad isdhihi lahayd ama waa tayo wanaagsan ama aad isdhihi lahayd way fiicnaan lahayd in loogu daro waxaan isleeyahay waa un ciidamadu waana dhalinyaro Soomaaliyeed waana dhalinyaro muxuu ahay sheegay xirfadaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka kale loo soo siiyay marka wax farqiya oo ay uga duwan yihiin ma jirto ciidamada kale waa waxay la mid yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed intiisa kale waxaan ugu maqaalahay in dagaalkii ugu dambeeyay hadda ka dhacay Masagawaayo kale ay ciidamadan xirfado aan hore ciidamada kale u isticmaali jireen ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay inay iyaga laftirkooda waxyaabo qarxa inta qaataan ay gudaha al-shabaabka u galeen markii dagaalku uu kululaaday taasi ma tahay xirfad aanay hore ciidamada u haysan oo ay ciidamadan Eritrea adeegsadeen taas horta normally waxay ka mid tahay tabta muxuu ahay ii sheegay ciidanka iyo tabta dagaalka qayb ka mid ah way mar walba marka dagaal dhaco maalin walba lamana soo bandhigo mana ahan naba ahan wax u baahan hadda in la soo bandhigo laakiin ciidamadu mar walba ay dagaal galaan xirfado kala duwan iyo xirfadaha hore tababarka ay adeegsanayaan taasina dabcan waa xirfadaha dabcan la soo baray xirfad kamid ah way marka ma dhihi karno ciidankii uga duwan yihiin ma dhihi karno laakiin waa xirfadooda caadiga ah oo ay cadawga kula dagaali lahaayeen marka ma waxaa jira unugyo gaar oo tababaradaasi la siiyo tire intee leeg ayaa howlgalkaas oo kale fulin karta oo ciidamada kamid ah maxaad ula jeedaa markaas yani in askartu ay inta qaataan inay askartu inta qaataan waxyaabaha qarxa ay gudaha u galaan al-shabaab oo ayaga ay qarxaan miyad kala jeedaa maya anagu taas waxaan ku naqaanaa argagixisada ciidamada qaranku ayagoo dagaalamaya oo hamigooda iyo hadafkooda uu yahay in ay cadawga dilaan iyaguna muxuu ahay ii sheegay qarankooda u sii shaqeeyaan ayagoo bad qaba ay muxuu ahay ii sheegay ay sii difaacaan qarankooda taas ayaa dabcan ayaa lagu asbaabiya laakiin ma jirto xubno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah ama ciidamada qaranka kamid ah ayagoo inay naftooda haligaan taas muxuu ahay ii sheegay aqoontadeena iyo islaamnimadeena iyo aragtideena ciidanku intaba toona nooma ogolo mana sameeyaan ciidamadeena